waxaan jecelahay inaan hambaliyo iraahdo dowladda Soomaaliya oo madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo hay'adaheeda kala duwan haday tahay xukuumad iyo haday tahay baarlamaan intaba waxaan leeyahay hambaliyo runtii dowladani waxay gaartay guulo isdaba jooga oo ay tan ugu dambeysay waxyaabaha laga xusi kara waxa kamid ah guulaha ay gaartay cunaqabatayntii deyntii oo la cafiyay arintii oo ururka bariga Afrika oo ay ku biirtay iskaashiga bariga Afrika waxay kale ku guuleysatay inay executive-kii ama mataqaana secretarianka urur goboleedka IGAD executive-keedana inay ku xigeen ka naqatay waxa kale oo ay ku guuleysatay inay khawaarijtii ay military ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo moraal ahaan ay u jabisay oo ay maanta ay marayaan meel dadka Soomaaliyeed ay ku dhiiradeen deegaanadoodina ay iyagu kala dagaalamayaan maantana qof Soomaaliya qof kasto Soomaaliya muwaadin oo hubiyo in argagixisada dalka laga saarayo meel qariibana ay marayso markaan u soo laabto marka guushan hadda taariikhiga oo markii labaad Soomaaliya ay ku guuleysatay inay kursiga UN-ka Security Council-ka ay mataqaana Soomaaliya fariisato muddo 2 sano ay ku guuleysatay cod aqlabiyada in caalamku mataqaana oo arintaas mataqaana ay u meel marto amba ay meel mariyaan ummadda Soomaaliyeed inay kamid noqoto golaha amaanka iyo rotationka amba waxa loo yaqaan wareegi ay Soomaaliya Afrika inay ku matasho ay maanta joogto taas oo muujinaysa inay Soomaaliya kaalinteedii ay soo ceshatay kuma imaan dheedheel amba ciyaar waa halgan ummadda Soomaaliyeed ay gashay safaradii isdaba jooga ahaa ee madaxda qaranku ay maraysay iyo diblomaasiyadii ay mataqaana wasaaradda arrimaha dibadda ha noqoto madaxweynaha ha noqoto ra'iisul wasaaraha ha noqoto oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku hogaaminayay aragtidiisa oo dalkan ka qabo ama uu sida mataqaana programkiisa qorshihiisa ajandihiisii oo doorashada ku helay ayay kamid aheeday waxyaabahan marka oo kamira dhaliyay runtii waxaan leeyahay hambaliyo madaxda kala duwan oo Soomaaliya ugu horeeyay madaxweynuhu waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya dhamaanteed ayaan mar labaad u sii hambaliyeeyaa waxaan kaloon u hambaliyeeyaa shacbi weynaha Soomaaliyeed ha joogaano gudaha ama dibadda ha joogaano meel kasto ay joogaan waxaan leeyahay hambaliyo waa guul idin soo hoyatay Soomaaliyana waxay u tahay tani waxay u tahay xaqiijintii himilooyinkii Soomaaliya idoo kursigeedu bannaan yahay halkii laga bilaabay in maanta mataqaana lagu soo gunaanadayo aan marayno inaan United Nations Security Council-kiisi aan maanta fariisanayno waa guul taariikhiya waxaan rajaynaynaa 2 sano 2025 iyo 2026 Soomaaliya inay u qabsoomi doonaan waxyaabo ka duwan wixii hore u qabsoomi jiray anagoon Security Council ku jirin oo qaramada midoobay aan golaheeda ammaanka aan ku jirin ayaan mataqaana tilaabadaad aragtay ay dawladdan u qaadaysay
maanta oo ay marka halkaas fadhiisatay waxay noqonaysaa marka inay soomaaliya midnimadeedii karaamadeedii sakuuridkeedii iyo xasiloonida gudaha inay markaan usoo jeesato dowladda soomaaliya waxaana rajaynaynaa sanadkan soo socdo maadaama uu sanad abshir noogu bilaabo sanad abshiraysan uu yahay oo guulo badan la gaaray asaga kii ka horeeyaba inaan mataqaanaa gaari doono natiijo dhammaystiran oo qarannimadii soomaaliya oo dhammaystiran oo xasiloon oo nabdoon in mataqaanaa aan gaari doono doorashada soo socota runtii aad iyo aad ayaan mar saddexaad ugu hambaleeyaa ummadda soomaaliyeed waxaana leeyahay midnimo iyo guul ayaan idiin rajeynaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo ayaan mataqaanaa ummadda soomaaliyeed u rajeeyaa meel kastoo ay joogto runtii tanina waxay noo tilmaamaysaa inaan isku filnaan doono iskuna tasho doono ayna noqon doonto soomaaliya barwaaqadeedii iyo karaamadeedii ay inta dib usoo naqatay ay wax soo saarka iyo markay xasiloonida iyo nabadgelyada ay gaarto wax soo saarkii lagu yaqiinay inay caalamka u dhoofi doonto oo iyadoo halkii laga quudi jiray inay caalamka quudi doonto aad iyo aad u mahadsantahiin waxaan idin leeyahay mar labaad soomaaliya ha guulaysato ha israacdo ha midowdo guulahaas isdaba joogana ha xigsato aad iyo aad u mahadsantihiin waana ku mahadsan tahay telefishinka qaranka soomaaliyeed inuu igu soo booqato halkan waa mahadsan tahay wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu